بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. casharadeenii hore oo noo socon jira halkaan kasii wadaynaa insha allahu tacaala. marka caawid waxaan ka bilaabanaynaa suuratu lleyl oo ka mida suuradaha makiga ah ee qur-aanka makiga ka mida ka hadlaysa qiyaamaha iyo caqiidada iyo la dhisayo xooga aad iyo aad loo dhisay ka hadlaysa iyo masiirka maaragta qofka bini aadamka ah adduunkan waxa uu noqon doono markii laga tago ayay maaragtay suuradda aada uga hadli doontaa. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, bismi illaahi araxmaani araxiim, magaca ilaahay baan ku bilaabanaynaa. ilaahay allihii naxariista caamka iyo midda khaaska naxariisanayay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, walleyli baan ku dhaartay hameenkii. waa makhluuqaadka ilaahay uu ka mid yahay. ilaahay makhluuqaadkiisa markuu rabo ku dhaartaa, markuu ku dhaaranayana ahamiyadda uu shaygaasu leeyahay oo maaragtay adduunka uu leeyahay ayaa maaragta lagu dareensiinaya. walleyli hameenkii aan ku dhaartay idaa goortii yaqshaa uu daboolaa leh. hameenkii markuu daboolo oo yacni waxa weeyaan hameenkii kulligiis uu daboolo maalintii oo mugdigiisa uu ku daboolo oo maalintii ay tagto carrada dhamma madoobaato, waqtigaas waayo hameenkii markuu daboolo, yacni maalintii oo carradoo dhan mugdi noqoto ayaan ku dhaartay buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala. waqtigaasaan ku dhaartay. makhluuqaadka ilaahay buu ka mid yahay maaragtay. marka hameenkiina oo maalintii iftiinkeedoo dhan uu maaragtay dhammaado waayo oo shay kastaa mugdigaas uu dhex galo, waqtigaasaan ku dhaartay buu yidhi. iyo wannahaari maalintii baan ku dhaartay idaa tajallaa markuu faydo, yacni markuu faydmo ama uu faydo, hameenkii uu faydo oo mugdigii uu maaragtay zuuliyo ama isagu uu soo daahiro waa bimacna duhuur ay dahara la yidhaahdo. tajallaa ay dahara oo kale la yidhaahdo. oo hameenkii markuu maalintii ay soo daahirto mugdigii hameenkuu asaguna uu meesha ka baxo. marka aljalaa bimacna duhuura la yidhaha maaragtay, yacni mugdigiiyaa meesha ka baxaya. markaas xarakadii bilaabanaysaa, noloshii dib u bilaabanaysaa, insaanku markaas howlihiisii qabsanaya. baynamaa hameenkii mugdigiisa ay ahayd sida badan in la seexdo oo xarakaadku ay degaan, waqtigaas buu ahaa. ilaahi wuxuu yidhi wamaa kii baan ku dhaartay khalaqa abuuray, waman baan ku dhaartay kii khalaqa abuuray addakara kan lab iyo walunta dhadiga. allihii abuuray waaye, yacni ilaahay abuuray lab iyo dhadig. yacni ilaahay waaye subxaanahu wa tacaala, asaga abuuray waaye. yacni waa labada sinfi waaye, labka iyo dhadiga, insaanka iyo xayawaanaadka iyo nabaataadka, waxaasoo dhan libaqaa'i nawci linsaana la yidhaha. marka nawcaas inuu baaqi noqdo ayaana sidaas loo labay. waa aayaat min aayaati illaahi bay ka mid tahay, mucjizada ah. walladii baan ku dhaartay khalaqa abuuray addakara kan lab iyo walunhaa kan dhadiga. allihii abuuraan ku dhaartay, asagaa ilaah isku dhaaranaya. intaasaan ku dhaartay buu wuxuu yidhi allah, waa kan wixii lagu dhaaranayay. inna sacyakum sacyigiina camalkiinnu dadow la shataa mid kala tagsan waayaale. yacni sacyigiinnu waa kala tagsan yahay, waa iskhilaafsan yahay, waa kala fog yahay weeye, waa kala fog yahay. bimacnaa waxa weeye qofka mu'minka iyo gaalkii, mudiicii iyo caasiga, qofka maaragtay naftiisa inuu naar ka badbaadiyo u socda iyo midka naftiisa naar ku ridaya, intaasoo dhan camalkooda waa kala tagsan yahay. waa qofba waduu qaadaya. qof daacada ilaahay buu ku taagan yahay, qof gaalnimo iyo macaasi iyo xumaan buu ku taagan yahay, qofba maaragtay meel buu ku jeedaa waay. marka dadkii waxa weeyaan adduunkaa markii la yimaado
ma aha in hal waddo la wada qaadayo. waxaa weeyaan qolana iimaankii bay qaadanaysaa, ilaahay baa ku hanuuninaya, islaamnimadii iyo diintii baa ilaahay fahamsiinaya. qolana waa qoladaas gaalnimada iyo maaragtay kufrigii qaadatay weeye. labadaas camal waa kala tegsan yihiin. xataa mu'miniintii nafteedii yaa kala tegsanoo sida daacada loogu dadaalayo oo cibaadada loogu dadaalayo oo qofka aakhiradiisa uga shaqaynayo oo wax beri anfacaya ugu dadaalayo, iyo qofaan danka lahayn oo macaasidii iyo xumaantii iska dhex gelaya. intaasoo dhan camaashii waa kala tegsan tahay. marka yamiinkii baan ku dhaartay markuu madoobaado oo uu daboolo maalintii yaan ku dhaartay markuu caddaado oo soo daahiro oo hameenkii uu mugdigii meesha ka baxo, iyo kii abuuray labka iyo dhadiga kii abuuray aan ku dhaartay, inna sacyakum sacyigiina camalkiinu dadow la shataa mid kala fog weeyaan, la mukhtalifu mid iskhilaafsan weeye, aad iyo aad u kala fogyahay. marka kala fogaantaasaa suurad lagaa siinayaa marka, oo sida camalku u kala fog yahay oo dadku aanay isku waddo u qaadaynin ayaa wax lagaa tusaalaynayaa. ilaahay wuxuu yidhi marka, fa ammaa man ruuxii acطaa dhiibay oo sadaqadii bixiye waaye. acطaa xaqa allah, ilaahay xaqiisii qofkii bixiye wixii ilaahay ku waajibiyey oo jidka ilaahay ku bixiyey wixii uu hayo fadliga ahaa, anfaqa fii sabiili اllah, yacni sadaqaadkii iyo khayraadkii iyo waxaasoo dhan, yacni wixii ilaahay u dhiibay bixiye, sakadii bixiye, qofkii sidaa yeelay. fa ammaa man ruuxii acطaa dhiibay oo wattaqaa dhowrsaday oo maaragtay xumaantii ka dhowrsaday, maxaarimta ilaahay ka dhowrsaday, macaasidii ka dhowrsaday, xumaantii ka dhowrsaday, adduunka intuu joogay noloshiisu ninkay sidaa aheedaane oo sidaa u dadaalayay, oo wasadaqa rumeeyey oo yaqiinsaday waaye bilxusnaa tii wanaagga badnayd, khasladii wanaagga badnayd oo jannadii ah. saas oo kale jannadii ilaahay ama kelimatu tawxiidna waa la yidhaahdaa yani taa rumeeyaa la yidhaahdaa. oo wasadaqa rumeeyey bilxusnaa tii wanaagga badnaydna rumeeyey tii wanaagga badnayd rumeeyey. fasanuyasiruhu waanu u fududay doonaa waaye, waa u diyaari doonaa. fasanuhayi'uhu waan u diyaari doonaa waaye, khasladii ayaan u diyaarinaynaa. allatii tu'addii ilaa yusrin wa raaxa, khaslada gaarsiinayda fudaydka iyo raaxada iyo maaragtay wanaagga ayaanu u fududaynaynaa way. yani fasanuyasiruhu, asaga waxaan u fududaynaynaa lilyusraa tii fudaydka badnayd ayaanu u fududaynaynaa hale. bimacnaa waxaa weeye khasladii fudaydka badnayd ee lagu gaarayey raaxada iyo wanaagga lagu gaarayay adduunka iyo aakhirada. bimacnaa waxa weeye acmaashii wanaagsanayd oo khayrka iyo wanaaggu ku jiray oo guusha qofka uu ku gaarayay aakhiradiisa iyo adduunkiisa uu ku gaarayay, camalkaasaa loo fududaynayaa, khayrkii wanaaggiyaa loo fududaynayaa qofkii sidaa yeela. marka wanaagoo dhan baa la fudud, qofkaas wanaagoo dhan baa la fudud. qofka kaleo ka soo horjeeda marka asagana arag, ilaahi wuxuu yidhi, wa ammaa man ruuxii bakhiilay wixii loo dhiibay aan bixinaynin waaye. bakhila bimaalihi falam yu'addi xaqa allah, xoolihiisii ku bakhiilay, xaqii ilaahay kama gudanin, xaqii addoommadu ku lahaayeen kama gudanin. waxaasoo dhan ma oggola waaye, oo fii sabiili illaahi wax ku bixin maayo. wa ammaa man ruuxii bakhiilay bimaali ku bakhiilay oo wastaghnaa deeqtoonaaday waaye. yacni deeqtoonaada waxaa laga wadaa wuxuu ka zaahiday bimaa cinda allah, ilaahay agtiisa wixii ahaadayba danba kama leh. wa ka'annahu mustaghnin, sidii wuxuu dhaqmayaa nin aan u baahnayn oo kale, oo ilaahay agtiisa nin aan u baahnayn oo kale ayuu mataqaanaa ayuu u dhaqmayaa, oo ilaahay ka cabsan maayo. oo waxa weeyaan ama istaghnaa binaciimi dunya, ama adduunyada nicmadeediiyuu ku deeqtoonaadayoo wuxuu ka deeqtoonaaday can naciimi alaakhirati, aakhirada nicmadeediiu yacni aakhirood ama dankama leh. adduunyadaasaa la macaan, adduunyadaa la toosan, adduunyadaas unbuu hamigiisii iyo maaragtay uu yahay. qofkii uu sidaa xaalkiisu yahaa la yidhi. oo wakadaba beeniyey
bilxusnaa tii wanaagga badneeda beeniyey oo horaan usoo sheegnay yacni waxaa waye khasladii wanaagga badnayd oo maaragtay acmaasha wanaagga lagu gaarayo wanaagga iyo khayrka lagu gaarayo adduunka iyo aakhiro lagu gaarayo xaaladaas oo dhanna maba rababa wax jira oo maahan uu ku leeyahay aakhiradaani waxa la sheegayo iyo waxaas oo dhan badan kama lehe marka ninka noocaasa ilaahay wuxuu yidhi fasanuyasiruhu waxaanu u fududaynaynaa oo u diyaarinaynaa lilcusraa tii culayska badneed waay yacni khasladii ama xaaladii dhibka badnayd oo gaarsiinaysay ila alcusri washidda cusrada iyo shiddada gaarsiinaydaan u fududaynaynaa waa camalka xun weeyaan acmaasha sayi'ada iyo xumaanta iyo macaasida iyo waxaas oo dhan ayaa loo fududaynayaa huu dalaq leeyahay oo adduunka iyo aakhiradaba uu ku khasaarayo kuwaasuu gelayaa waay marka labada qolo waa kala tegsan yihiin waa ujeedaa qofna waddadan wanaagsan uu qaaday qofna waddadaa xun buu qaaday sidaasaa loo qaybsamayaa waay sidaasaa loo qaybsamayaa leyla nahaari qof walbaahiba waxa weeyaan waddaduu qaaday waa fahmi karayaa way haddii khayrku kuu fudud yahay haddii taacadu kuu fududahay haddii diinta ilaahay maaragtay ay aad iyo aad kugu adagta qiimo weyn kula agtaada ka leedahay iyo ninka aan diinba dan ka lahayn diintiisaba aan dan ka lahayn labadaasu meel ma wada socdaan waaye la shataadaasa bay gelayaan marka nin walba waddadaad maraydo iska fiiri waaye ilaahay wuxuu yidhi marka wamaa yuqnii ma deeqaayo canhu midkaas bakhiilay oo maaragtay ku bakhiilay xoolihiisa ka deeqi maayo maaluhu xoolihiisu ka deeqi maayaan idaa goortii taraddaa uu antaroorsado markuu naarta ku hoobto yaa oo naarta berri dalaq jahannamo la geeyo xoolihii faraha badnaa ee uu ku bakhiili jiray ee uu aruuri jiray ee khayrka iyo wanaagga uu u diidanaa kuwaasi wax ay u qabanayaan ama ay u tarayaan lama arko weeye waxba u tari maayaan waay wamaa yuqnii mana deeqaayo canhu xaggiisa maaluhu xoolihiisu ka deeqi maayaan waxba u tari maayaan idaa goortii taraddaa uu antaruursado oo ku dhaco naarta uu ku hoobto waay naarta markuu ku hoobto waxay u tarayaan lama arko waay marka sidaasaa loo qaybsan yaha waay bakhiiltinimada wax lagu bakhiilo iyo xoolaha lagu bakhiilo iyo waxay kuu soo kordhinayaan lama arko adduunka intaad noolaa lahayd ilaahay baa kafaalo qaaday waxaad ku noolaa lahayd cimrigaagu waa xadidan yahay saacadaha lagu kordhi maayo waxaa fiican marka cimrigaas inaad wanaagga uga faa'iidaysato khayrka iyo daacada uga faa'iidaysato cibaadada iyo wanaagga inaad uga faa'iidaysato taasa ayaa wanaagsan xoolaha haddii ilaahay gacantaada geliyo khayrka inaad ku bixido sadaqaadka inaad ka bixido masaakiinta dadka baahan inaad siido adoo ilaahay ugu dhowaanaya oo ilaahay darti u suubinaya sidaasaa la rabaa ilaahay baa adduunka iyo aakhirada kuu barakaynaya markaas oo kale ilaahay wuxuu yidhi marka inna calaynaa korkeennuu ahaaday lalhudaa hanuunkii ilaahay korkeenna annaku ahaaday waay yacni waxaa weeyaan korkeennuu ahaaday waay lalhudaa la bayaanu lxaqi aa loo jeedaa xaqa caddayntiisu annaga korkeennuu ahaado annaka caddaynayna min albaatili laga caddeeya qur-aanka caddaynaya waay baatilkii iyo muxuu ahaaye xaqii qur-aankaa la kala caddaynaya waay si loo raaco marka oo xaqiina loo raaco xumaantiina markaa looga fogaado waay marka wixii xumaasaad ku ogaanaydaa ilaahay baa kuu caddaynaya biqur'aanihi buu kugu caddaynaya bisunnati nebiyi sala allahu calayh wasalam ayuu kugu caddaynaya intaasa inaad barataa laga rabaa si aad u fahamto waddada aad ku socotaa waddada ay tahay meesha aad maraysaa waxa ay tahay ma khayrkiibaad ku socotaa mise meeshii xumeedaad ku socotaa waxay u baahan tahay barashay u baahan tahay wa inna calaynaa annaka korkeennuu ahaaday lalhudaa hanuunkii yacni tusaalihii la tusayahay meesha saxda ah oo xaqa lagu caddaynayay oo waddada saxdaa lagu tusayey kaasuu annaku korkeenna yahay waay annakaa kuu caddaynayna buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala wa inna lanaa annaku noo sugnaada buu yidhi alleh yacni annaka keliyaha tasarufkaasoo kaamilkaa iska leh wa inna lanaa annaku noo ahaaday laalaakhirata aakhirada iyo waluulaatii horreeyde labadaba yacni tasarufkooda iyo maamulkooda annakaa iska leh adduunkii aakhiradii waayo labadaba annaka maamulayna koonka allah maamulaya adduunyadan aan ku noolnahay allah maamulaya cid kaloo la sheegan kartaa ma jirto waxa joogaana waa makhluuq waa dhammaanaya cimri baa daba jooga
kii hor haddii nin awood sheegan karo dhihi kara anaa sidaan rabaan yeelaya odayaashii horaa joogi lahaa kuwii horaa dhammaaday sidaasaa lagu wada dhammaanaya koonkan ilaahay baa maamulaya aakhirana ilaahay baa maamulaya addoon ilaahay inaad noqotood ilaahay ku xirnaato wax ka qiimo badan lama arko ilaahay waddada toosan allaha nagu hanuuniye wa inna lanaa annaka uu noo sugnaaday buu yidhi alle lal aakhirata tii dambeyday iyo walulaa tii horrayda labadaba annakaa iskale waay labadaba annakaa iskale wax cid kale oo nala maamulayda oo gacanta ku hayda oo laga sugayaa ma jirto waay faandartukum waa idiin digay dadow faandartukum waa inii digay naaran ayaan idinkaga digay waay dadow taladaa ay tatalahabu naar holcaysa maaragta oo hurayda yaa ayaan idinkaga digayaa waay war nin walba u naftaada badbaadi adduunyada iyo aakhirada waa ninkaa maamulayna cid kaloo gacan ku haydaa ma jirto aakhiro haddaad naarta gasho maalkaagii aad ku baqiisho wax kuu tarin maayo xaqa iyo baadilka annaga kala caddaynayna intaasoo dhan waa waana naloo soo jeedinaya waay markaasa waxa lagu leeyahay faandartukum waa idiin digay naaran ayaan idinkaga digay taladaa ay tatalahabu naar holcaysoo gubanaysa ayadoo maaragtay huraysa ayaan idinkaga digay laa yaslaaha geli maayo buu yidhi alle naartaas yaa ila alashqaa midka dhurdarsiga badan mooyaane gaalka ah kaa mooyaane lagu cadaabi maayo cid kale wey yani dabaqaadkeeda iyo kulaylkeeda qof kaloo gelaya oo ku gubanayaa ma jiro yaa ila alkaafiru gaalka mooyaane xaqa beeniyey oo ilaahay diintiisa ka jeestay daacada ilaahay ka jeestay qofkaas maahan qof kale lagu cadaabi maayaa layidhi marka waxaa la yidhaha aayaddu sabab nusuulkeedu waxay ku soo degtay ninkii la dhihi jiray umayat bni khalaf iyo nudaraa'idii dadkii asaga la midka ahaayoo dhaqanka xun lahaa oo nebi moxamed sala allahu calayh wasalam dacwada markuu soo bilaabay ka soo horjeesay raggaas oo kale iyo wixii la mid ah ilaa qiyaamo laga gaaro waa noocaas weeye marka naartaasaan idinkaga digayahay nin walbow is-ilaali wee daacada ilaahay ku dadaal wasayujannabu waa ka dheeraynayaa alleh wuu ka dheeraynayaa naartaas wuxuu ka dheeraynayaa al atqaa midka cabsashada badan ama dhowrsashada badan waay midka dhowrsashada badan bilkulliyaba yacni guud ahaanba midka dhowrsashada badanoo ka dhowrsada gaalnimada iyo macaasida iyo xumaanta intaasoo dhanba iska ilaaliya kaas ilaahay waa ka dheeraynayaa wasayujannabuhaa wuu ka dheeraynayaa al atqaa midka dhowrsashada badan oo ka cabsada yacni xumaantoo dhan iska ilaaliya waay alladii midkaasoo yu'tii bixinaaya maalahu xoolihiisa bixinaaya xoolihiisu bixinaya isagoo raadinaya ilaahay agtiisa waxaa ajar iyo hawaab isagoo raadinaya midka xoolihiisa bixinaya yatasakaa xaaluu isطahirayo waay yatasakaa yacni asagoo taskiye raadinaya yatataharu waaye dunuubtu iska tahiraya xumaantu iska baabi'inaya waxaasoo dhan asagoo saa u raadinaya midka xoolihiisa sidaa ku bixinaya ayaa maaragtay ilaahay naarta ka fogeynaya oo maaragtay ka dheeraynaya oo aayadda waxaa la yidhaha waxaa ku soo degtay abubakrin sidiiq radia allahu canhu iyo raggii la mid ahaada waddadaas mara cibradu waa iska cumuuma yacni waxaa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab baa la yidhaah yacni inkastoo sababta uu lahaa ay ku soo degtay yacni abubakrin sidiiq laakiin waxaa weeyaan aayaddu cumuumkeedaasay ku soconaysaa waay marka ninkaa xoolihiisa bixinaya asagoo isطahiraya kaasaa laga dheeraynaya naarta laga fogaynaya wamaa liaxadin walxaal maa liaxadin qofna aysan u sugnaanina leeyahay yacni khayrka markuu suubinaayo oo wanaagga uu suubinayo cid amaal ku leh ma jirtaa la leeyahay wamaa liaxadin axadna aysan ugu sugnaanina leeyahay qof ku leh uusan jirinina leeyahay cindahu agtiisa min nicmatin nicmo uusan ugu sugnaanin tujzaa ee la amaalgudo yacni nicmo loo amaalgudo qof ku leh lama arko waa qof amaal ku leh oo leeyahay qof hebela waa qofkiisaa ii galay qof hebela waa qofkiisaa igu ixsaan falay waxaan ma jirto dad aanu ixsaan iyo midna oo ilaahay dartii wuxuu bixinayaa waa yacni xubban lilaah ilaahay buu dartiisu wuxuu bixinayaa
waana sida saxda ah oo la rabo qofka muslimka ah inuu ahaado. markaad wax bixinaydo ilaahay dartiisa wax loo bixiyaa, xubban fillaahi, jacayl ilaahay aad jeceshahay, rida ilaahay ridiisa aad raadinaydo, maxabadiisa aad raadinaydo, jannada ilaahay inuu ku siiyo, naarta ilaahay inuu kaa badbaadiyo, midaasaa wax loo bixiyaa maahane hebel ha ku jeclaado iyo hebel ha ku ammaano iyo waxaasoo dhan waxba tari maayo, meelna gaari maayaan. marka xoolihiisa u bixi maayaa la yidhi qof agtiisa wax ku leh ama amaal ku leh ma jiro oo u bixi maayo ila ibtiqaa'a wajhi rabbigiisa wejigiisa dalabkiisa maahan wax kale u bixi maayo. yacni ilaahay wejigiisu dalbaaya, alla ridihiisu dalbaya, taasoo kale waa wax kale ma raadinayo. ila ibtiqaa'a wajhi rabbigiisa wejigiisa dalabkiisa mooyaane wax kale u bixi maayo. rabbigii alaclaa ee sarreeyey, xumaan oo dhan ka sarreeyey maarta, rabbigaasoo maaragtay ayuu dalbayaa, wax kale ma jeedo. wala sawfa jeer dambe ayuu yardaa raalli noqonaya. waa wacdi ilaahay, waa ballanqaad ilaahay loo ballanqaaday inuu khayr oo dhan gaarayo waxa uu doonayo, sida ugu dhammaystiran inuu gaarayo. qofka sidaa yeela, abubakar ha ahaado iyo cid alla ciddii wanaagga sidaa u suubida oo khayrka sidaa u suubida ilaa qiyaamo laga gaaro, iyakuna sidaasay noqonayaan ayaad loogu bishaaraynayaa. wala sawfa yardaa, waqti dambe ayuu raalli noqon doonaa waaye, marka ilaahay addoommadiisa amaalmarinaayo, kuwa wanaagsan la amaalmarinaayo, jannadii ilaahay lagu amaalmarinaayo, khayrkiiyo wanaaggay suubiyan lagu amaalmarinayo, maalintaa buu raalli noqon doonaa baa layidhi. oo wacdiga ilaah, ballanqaadka ilaahay kuwii raalli noqda oo ilaahay u raalli geliya allah naga dhigo, waddada wanaagsan kuu qaada allah naga dhigo.